Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Magacaygu waa Injineer Ismaaciil Maxamed. Waxaa noo socday kooraskeenni ahaa barashada Windows 11 iyo aasaaska Windowska. Casharkani waa casharka saddexaad. Casharkani waxaan ku baran doonaa waa maxay desktop, shaqada uu qabta maxay tahay desktop. Sidoo kale waxaan casharkan ku baran doonaa sidee loo bedelaa sawirka ama image-ka kuu saaran desktop-ka. Sidoo kale sidee loo qariyaa icons-ka ama application-ada kuu saaran desktop-ka. Haddii si kooban aan kuugu sharaxo waxa uu yahay desktop waa bagga ugu weyn ee kuu soo muuqda ama kuu soo baxa markii kombiyuutarkaaga aad furtid, waana halka ay ka soo muuqanaya dhammaan faylasha iyo foldarada iyo sidoo kale application-ada ku jira kombiyuutarkaaga. Haddii si tusaale ahaan desktop muxuu yahay haddii lagu dhaho, desktop waa wejigan hore ama boggan hore ee kuu soo muuqda markii kombiyuutarkaaga aad furtid, waana meesha ay ka soo muuqanayaan dhammaan icons-ka ku jira kombiyuutarkaas, sidoo kale application-ada ku jira kombiyuutarkaas. Desktop-ka sidoo kale waxaa ka soo muuqanayo leenkan hoose oo loo yaqaano taskbar. Taskbar asaga waa baran doonaa, laakiin halka uu ka soo muuqanayo waxaa la yiraahdaa desktop. Maxaan ku dhahay desktop waxaa ka soo muuqanayo icons-ka ku jira kombiyuutarkaaga iyo application-ada aad ku shubtay kombiyuutarkaas, haddii ahaan lahaayeen software adiga aad isticmaalaysid iyo kuwa lagu keenaba. Desktop waxaa la mid ah home screen-ka mobile smartphone-ka aad wadatid. Mobile smartphone wuxuu leeyahay home screen, shaashad. Haddii aan kuu sharaxo home screen waxay tahay, kani waa taleefan smartphone ah. Kuwani waa application-o ama software ama apps ama sidoo kale waa application-o ku jira mobile-kaaga. Halka ay ka soo muuqdaan waxaa loo yiraahdaa home screen. Wax walba oo application walba oo mobile-kaas ku jira waxaa laga arkaa home screen-kan. Si la mid ah kombiyuutarkan wuxuu leeyahay desktop kaasoo ay ka soo muuqanaya dhammaan wax walba oo ku jira kombiyuutarkaas oo application ah, sida foldarada, application-ada iyo icons-ka ku jira kombiyuutarkaas waxaa laga arkaa desktop-ka. Waxaa jira wax la yiraahdo icons. Desktop-ka waxaa ka soo muuqdo icons-ka ku jira ama la socda Windows-ka. Sidoo kale waxaa ka soo muuqda software-ada aad ku shubata adiga, kuwaasoo ka soo muuqanaya desktop-ka. Haddii marka anaga aan rabno inaan desktop-kan application-ada ama icons-ka saaran aan qarino, laba qaab ayaa loo qariyaa. Qaab waa in ay dhammaan aad wada qarisid, qaabna waa inaad adiga qarisid icons-ka bes. Icons waxaa la yiraahdaa kuwa oo la socda Windows-ka sida my computer, network, recycle bin iyo control panel. Kuwaas waxaa la yiraahdaa icons. Kuwan waxaa la yiraahdaa applications ama softwares kaasoo kombiyuutarka lagu shubay. Marka ugu horeysa waxaan qarinaynaa icons-ka saaran desktop-ka. Si aan u qarino waxaan tegaynaa meel bannaan desktop-keena, kadib waxaan leenahay right click, kadib waxaan leenahay personalize. Waxaa kuu soo muuqanaysa daaqadan, kadib waxaad ka tagaysaa halka ay ku qoran tahay themes. Waxaan dooranaynaa theme. Kadib waxaan ka dooranaynaa theme-ka desktop icon setting. Haddii waxaa kuu soo muuqanayo daaqadan yirista ah, daaqadani waxaa kaaga soo muuqanayo kuwa jack saaran tahay iyo kuwa aan jack saarnayn. Kuwa jack ay saaran tahay waxay ka soo muuqdaan desktop-kaaga. Haddii aan ku tusiyo hadda computer waxaa jack saaran computer. Computer waxaa la yiraahdaa this PC. Haddii aan ka qaado computer wuxuu ka bixi doonaa desktop-ka. Tusaale, jack ayaan ka qaadaa computer, kadib waxaan leeyahay apply. Waxaa halkan ka baxay my computer. Sidoo kale waxaan ka qaadayaa recycle bin jack-ga. Waxaa ka baxa halkan recycle bin. Waxaan jack ka qaadayaa control panel-ka. Kadib waxaan leeyahay apply. Inta waxaa ka baxay control panel iyo recycle bin iyo my computer. Haddii aan rabo inaan dib u soo celiyo waxaan samayn karaa inaan jack ku celiyo. Sida my computer ayaa jack ku celinaa mar kale. Kadib waxaan leeyahay apply. Waxaan halkan soo galay my computer. Sidoo kale waxaan jack ku celinayaa mar kale recycle bin. Kadib waxaan leeyahay apply. Waxaan soo galay my computer iyo recycle bin. Mar kale waxaan jack ku celinayaa control panel. Kadib waxaan leeyahay apply. Hadda waad fahantaan filayaa icons-ka saaran desktop-kaaga sida loo qariyo iyo sida loo soo furo iyo sida dib loogu soo muujiyo. Kadib waxaan leeyahay okay. Si la mid ah waxaa jira si kumeel gaar ah inaad u qarisid. Haddii aad rabtid inaad si kumeel gaar ah aad u qarisid dhammaan application-ada saaran
desktop-ka kombiyuutarkaaga waxaad samayn kartaa, waxaad tagtaa meel bannaan, kadib waxaad leedahay view, kadib waxaad jeeg ka qaadaysaa show desktop icons. haddii show desktop icons aan jeeg ka qaado, dhammaan application halkan saaran way ka bixi doonaan si ku meel gaar ah. waxaan leenahay right click show desktop icons. waa aragtaa dhammaan iconskii iyo applicationada saaran desktopka sidaas ayay ku bixeen. haddii aan rabo inaad dib u soo furto maxaan samayn karaa? waxaan tegayaa meel bannaan, right click, kadib waxaan leeyahay show desktop icons. haddii aan rabo inaan sawirkan desktopka saaran aan bedelo, sidee u bedeli karaa? ayadana sidoo kale waxaan leedahay right click, kadib waxaan leedahay personalized, kadib halkan waxaa kaaga soo muuqanaya background, kadib waxaa ku dhufanaysaa background. waxaan dooranay background, kadib waxaan dooranaynaa halkan ka dooranaynaa sawirka aan rabnay inaan aniga kombiyuutarkeena aan saarno. waxaan dooranaynaa sawirkan aniga aan leeyahay, waxaan dooranaynaa sawirkaas buluugga ah, kadib waxaan fiirinaynaa inuu naga bedelmay sawirkii noo saaran desktopka. si fudud waxaan ku bedelnay sawirkii noo saarnay desktopka kombiyuutarkeena. haddii aan rabno inaan sawirkan bedelno, aan sawirkii hore dib ugu celino, maxaan samayn karnaa? waxaan leenahay right click, waxaan leenahay personalized ayaan ka dooranaynaa. mar kale waxaan ka dooranaynaa background, kadib waxaan ka dooranaynaa sawirka aan rabno. su'aale waxaan ku celinaynaa sawirkii hore ee noo saarnay. waa aragtaa hadda waxaan bedelnay mar kale sawirka desktopka noo saarnay. cashirkeena caawa waxaan ku baranay waxa ay tahay desktop, shaqada ay qabato, iyo sida loo qariyo iconiska saaran desktopka sida my computer, recycle bin, files iyo softwarada saaran. waxaan filayaa inaad fahanteen sida sawirka desktopka looga bedelo, shaqada guud ee qabato desktopka, iyo sida iconiska ama applicationada saaran si ku meel gaara loo qariyo, iyo sidoo kale sida sawirka looga bedelo desktopka kombiyuutarkaaga. kooraskeennan insha allah waxay noqon doonaa sidaan hore u sheegnay kooras taxano ah. insha allah waxaan ka diyaari doonaa insha allah 20 cashir oo aan habeen walba hal cashir soo geli doono hadduu alla raalli ka ahado. soo dhawaada saaxiibayaal. dabcan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir insha allah. waxaan rajeynayaa insha allah inaan wax badan kala faa'iidi doono hadduu alla raalli ka ahado. magaciiguna waa injineer Ismaaciil Maxamed. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.